argabo buulaleydeeda waxa ka dhacay dagaal solxun oo lagu qaaday dad aan dib u wadin waxa ku lafway xoolo iyo geel dagaalkaas oo aan jahalahay oo ay soo qaaday systemka maanta ka jira Somaliland siba generalka ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Taani iyo howlgelintiisa oo u dhashay gobolka Sanaag dagaalkii aan 6 bilood ka maareynayay gobolka Sanaag waa fududeysay waa soo dedejisay waxa arki doontaan in wadooyinka la mari waayo waxa arki doontaan in la filixsado baabuurta dawladda waxa arki doontaan iyadoo kuwa xilka ka haya la filixsado la bidhaansado ayaa argad maadaama ay weerar ku soo qaadeen rag hawshooda wato dhulkan ninkii lahaa u halaya dhulkan ninkii lahaa u halaya waa loogyahay waxa arki doontaan Hargeysa gudaheedu la mari waa laga afturto saraakiisha iyo wasiirada waa arki doontaan insha Allah مدلو وايو وابلود اللي حبلود بانو كمارين مدحوين مصبحي وحاصو دن واركيا وكجمعي وكسح واركيا دغال كسيده لو بلابا وا فددحي موسو لكن سيده كل ما ذا ما فددان دونتو isagana intaasaan leeyahay jabhadu way durkaysaa baysas badan bay yeelan doontaa ilaa si xabada la bilaabo oo dawladda yar ee daciifka ah ee tirtay maamulka yara ee tirtay la maran hadaabiyay ilaa ay bilowdo ma bilaabi doono bulshada uu tiro doono laakiin maanta way bilowday bulshada waxba ma yeeli doono iyagu baanu bilaasan doonaa ka tirsanaa saldhigga dhexe ee gobolka Awdal waxaan ahaa baara ka tirsan laanta CID-da gobolka Awdal Cabdullaahi Fadil Iimaan mid baan leeyahay waxaan leeyahay ummadda been oo sheegaysa laakiin Ilaahay been oo sheegaysa khabri baan qabtay gobolaas Awdal ay ku turtay shaqadii waan diiday shaqadii kale haystay anoo sargaal ay laga dabeeyay waxaan qabtay nin madaxa dhalay khabriga qabtaniga wax dhalay nin madaxa dhalay saasa gobol laga saaray imikii haddana waxaan garab taaganahay ku garab dhimanaya amarkiisa qaadanaya korreyn caare oo diiday dulmiga meesha ka jira